Professor Stefano and Professor Bikini. Welcome to Somalia. And maanta waxaan ku soo dhaweynay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Dhakhaatiir ka yimid magaalada Milano ee dalka Talyaaniga. Kuwaas u yimid dalka inay sameeyaan qaliimo loo sameyn doono carruurta Soomaaliyeed. Gaar ahaan kuwada qaba xanuunada kaadi mareenka iyo taranka. Dhakhaatiirtan qaarkood hore ay u yimideen dalka ayaga oo sameeyay mataqaana baaritaan ku saabsan arrimahaas. Sidoo kale waxaa wafdiga maanta imaaday mataqaana kamid ah laf dhabar u ahayd barnaamijkan walaasheen Adna Macalin Cabdiraxmaan oo degan magaalada Milano oo runtii ah qofkii barnaamijkan ama hawshan soo bilowday asaaskeeda lahayd isku soo dubariday juhdi iyo dadaal badan soo gelisay sida aad la socono hore dalka Talyaaniga waxaan ugu dirnay caruur Soomaaliyeed oo qaba xanuunada wadnaha gaar ahaan iyo kuwa kalaba oo lagu soo qalay lagu soo daweeyay dalka Talyaaniga oo haatan ayaga caafimaad qaba jooga dalka Soomaaliya. Good morning, I'm Stefano Mazzoleni. I'm a pediatric surgeon from Niguarda, Milan. It's the second time I come here to Mogadishu, and I'm really happy to be here. I thank you for your hospitality, as always. And this time we're gonna start having surgery on some patient that we selected on my previous visit, and some other patient that we're gonna visit during these days. And tomorrow will join us a great pediatric anesthesiologist, Dr. Sergio Cereghini, and all together we'll try to do our best to care for the little children of Mogadishu and Somalia. I'm very happy to be here and to start this cooperation between our countries, and I'm happy to be here and to start this cooperation also with your doctors and to help children here, and we hope in the next few months to operate also children with severe pathologies in Italy. magacaygu waa Dr. Abdullahi Jaamac Habib, waxaan ahay Medical Director of Siman Hospital oo ah meesha qalinku ka dhici doono oo qalinku ka fuli doono. Barnaamijkan oo ah barnaamij daba socda barnaamij hore u soo bilaabmay kaasoo iskaashi ka dhaxeeyay Maama Edna isbitaalka Niguarda ee Milano ku yaalo iyo Regione Lombardia iyo Hormuud Salama Foundation kaasoo marka hore ku bilaabmay qaliimo lagu sameeyay ilmaha caruurta ee cilada ka qaba wadnaha kaasoo hadda fayskiisii labaad bilaabmay in caruurta qaliimada caruurta guud gaadhaadkaadi mareenka in lagu daro. dhakhaatiirta oo nooga imaaday dalfog iyo maxay ahayd Edna Macalin oo ayadana aan ugu mahad celinayno ayada oo waqti badan ka soo shaqeynaysay caruurta Soomaaliyeed markasta in la badbaadiyo dhinaca wadnaha maantana ku darsatay maxay ahayd dhinaca kaadi mareenka iyo isbitaalka Siman oo Cabdullaahi uu hogaaminayo iyo Hormuud Foundation oo ayna suurtagal lahaynba hawshaas oo dhan hadaynan ayada garab istaagneen